iyadoo maalintii labaad uu ka sii socday shirweynaha Khaatuma 2 deegaanka Taleex ayaa waxaa maanta si rasmi ah u sii furmay wajigii labaad ee shirweynaha Khaatuma 2 kaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha sarsare dhammaan xubnihii ka qayb galay shirweynaha Khaatuma 2 waxaana maanta ka dhex muuqanayay madasha shirka uu ka dhacayay qaar ka mid ah xubnaha ugu sarsareeyay ururka SSC oo iyagu aan ka qayb galin furitaankii shirweynaha Khaatuma 2 waxaana halkaasi ugu horeyn ayada quraanka ka soo jeediyay qaar ka mid ah culimada diinka ugu waaweyn deegaanka Bohol ayadaha quraanka kadib waxa halkaasi ka hadlay Ibrahim Maxamuud Guuro oo xogayaha dastuurka xiriirka federaalka ururka SSC isla markaasna uga mahadnaqay shacabweynaha gobolada Sool Sanaag shirkan ay dhigeen deegaanka Taleex fiican weys yiraahdaan inta wuxuu wax ka weyn maaha provocation ka la sameeyay dacaayadaha waxa la abuuray waxaan idin sheegaynaa inaan waxba ka jirin ahmiyada kaliya ee anagu maanta u nimi shirka Khaatumo waxa weeye maanta wuxuu noqonayaa shirkan aynu isugu nimi laftirkiisa dalahaan iyo fikradahaan wixii ka soo baxay insha Allah waan filayo inay yihiin wanaag waxay ka dhalan doontaa go'aankeena Ilaahay idinkii geedkan ka soo hoos bixi doona waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha shirkan oo meel kasta iyo gobolladeena oo dhan ka yimi iyo dibaddaba oo waqti badan soo geliyey oo kharash badan soo bixiyey mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo celceliyey karaamadayna oo aad indhihiina ku aragtaan kuwa badan inay naga maqan yihiin oo dhib badan u soo maray cuqaasha iyo waxgaradka kale oo dhan dhammaan talweynaha bardaha Taleex saaka isugu yimid waan salaamaya waxaan u mahadnaqayaa reer Taleex soo dhaweynta iyo sharafta ay noo sameeyeen iyo martigelinta ay martigeliyeen shirkan waxaan kaloo mahad u celinayaa odayaashii shirkan soo qabanqaabiyey inoo suuro geliyey in la qabto aad iyo aad baan iyagan ugu mahad celinayaa khayr allaas waxaan ka mid ahaa 3 sin oo tegay Nairobi berigii jaaliyadda Nairobi ama Kenya ay soo abaabushay SSC halkan ay madaxdeeda ay ka hadlayeen anagoo dibadaha jira 3 sin baa waxaa la yidhi war اسمدي داسوي ما دنو كالا يا قولي شركة وذي إيرادين وبعنا كم مار بكرو دنو كالا لا بإيرادين اسمدي كلا واحد نوكيشين صدق هذا اسم والله شرعي وتبدأ عن كل عين بيرين ذيك أنك وكيل لقى وضع شركة كغيب قلا أنا قال ذيك أنا مثلا waxaan halkan hadda ugu soo jeedinayaa dhammaan inta soo qayb gashay iyo inta maxay shirka soo abaabushay waxaan kaloo mahad u naqayaa dhammaan dadweynaha Taleex dhammaan inta shirka ka soo qayb gashay iyo inta deegaanka Taleexba iyo inta ka soo qayb gashay ka timid Lascaanood iyo Bohol-laba waa mahadsantihiin aan isbaqti gareeno dumarka iyo ragga waxa kala xishooda xaqeedana dumarka xaqeedana siiya please anu u taagana dumarka ma hadlaya runta ii sheegaya dumarka xaqeedana ragga siiya assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale waxa isaguna madashaas shirka ka hadlay wasiirka hore warfaafinta ee dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya mudane Cabdikariin Xasan Jaamac oo baad saxaafada assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxa ilaahay mahadiisa in meeshan maanta ay isugu timaado bahweynta deegaanada SSC oo isugu timaada talo oday kasta aan weydiiyay iyo islaan kasta ay ilaaheen tan oo kale wali kama dhicin deegaankeena inay dadku inta isugu yimaado meel walba isaga yimaado taa ilaahay baa mahad ku leh mahad kale waxaan u jeedinayaa deegaanka Taleex oo isku soo duubay ilaahay uu gul naga gaarsiiyo waxaan mahad kale u celinayaa odayaasha G6 oo wax kasta oo ku dhacay runtii iyagu
isku soo waduub shirkan maanta wajigiisa labaad uu ka furmay degmada Taleex ayaa noqonaya shirweynihii ugu ballaarnaa ee lagu qabto gudaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn isla markaasna ay ka soo qayb galaan wufuud baaxad badan oo ka kala yimid gobolada dalka. Cabdiweli Cabdixiis, Hon Cable TV, Taleex.